dalka Netherland waxaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo loogu dabaaldegayay guusha xisbiga mucaaradka ah ee Somaliland uu ka gaadhay doorashooyinkoodii taasi oo taageero weyn loogu muujinayay gudoomiyaha xisbiga iyo madaxda kale ee xisbigaasi. madasha ayaa sidoo kale waxaa lagu ballaadhinayay gudida xisbiga ee dalka Netherland waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi madaxda xisbiga ee dalkaasi, madaxda jaaliyadda, madax dhaqameed, haween iyo waxgarad kale. kuwaasi oo hadalka iska daba qaatay ayaa bogaadiyay guusha xisbiga ka ah ee uu ka gaadhay doorashooyinkii Somaliland iyo doorka siyaasadeed ee uu ku leeyahay dalka. ururka ugu dhawaaqay Somaliland doorashada ummada intii aan gelin waxaan isku daynay in halkan laga sameeyo maamulkii xisbiga oo markaa u ahaa waxaan ku guuleysanay in guddi isku dhafan la sameeyo. guddidaasina runtii waxay soo shaqeynaysay muddo dheer oo intii xisbiga aanu soo gudbinay xisbiyada aanu soo gudbinay. dowladda waxay daaran tahay laba qodob. mid uu ahaa dabaaldegii inaynu muujino bulshada aynu gaadhnay, midna waxay ahayd oo runtii ay tahay inaynu guddidii iyo ballaarintii aynu runtii waxaan kasoo shaqeynay iyadana aynaynu isla wadaagno. saa la socotaan waxaa jirtay guddi oo gudoomiye maxamed xaaji soo magacaabo 7 xubnood ka mid ahayd markii aynu ahayn markii aynu xisbiga u soo gudbinay waxaan ka soo saarnay runtii arrintaas ah in guddigii la ballaariyo oo runtii la iska wada dhexarko. gudoomiyahana waanu la wadaagnay. soo jeedintii guddiyada ka timina waxaanu isla garanay in dib u eegis lagu sameeyo. ballaarintii guddida inaanu ballaarinana waa diyaar insha allahu tacaala, laakiin markii aanu talada wadaag ka yeelanay waxaanu go'aaminay in shaacinteeda dib loo dhigo. iyadana waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala waqti kooban oo aan fogeyn inaan insha allahu tacaala iyadana aan dhamaystirno. waxaan runtii bogaadinayaa oo aan u mahadnaqayaa hablihii runtii xafladan inta badan kasoo shaqeeyay iyo weliba guddigii kale iyaga laftooduna gacanta way ka geystay, iyagana waan u mahadnaqayaa. waxaan kuma mar labaad u mahadnaqayaa runtii dadkii ama jaaliyadihii inooga yimid dibadda. jaaliyadey naga baaqnay baa jira oo duruufay naga baajiyeen, iyagana halkooda ayaanu salaanta ugu diraynaa. waa mahadsan yihiin. waxaan celinayaa ulaha badanaya walaabka Maalin oo muddo 2 sano ismaqaanay isbuucaanadii aan ku soo bilowday oo maanta isagana loo doortay gudoomiyaha ka ay waddankan hore. aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. waana xilli aad iyo aad u weynahay garanaysaa ee hadalku ka jaaliyad ahaan annaguna wax weeyaan ilaahay ka dhigo waa la shaqeynaynaa. intaan waa la soo shaqeynaynaa, haddana waa la shaqeynaynaa inta ka dhiganba. waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda pictureka oo iyaduna mar kasta oo aan hawl leenahay la garab taagan, annaguna markii hawl leeyahay inaan garab taagannahay islama wakiilano oo waxa weeya wada shaqeyn fiican aan ka dhexayso. iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. asalaamayaa golaha quruxda badan, xisbiga qaaliga, xisbiga dhiigga iyo qadiyadayada ku jira doorashada soo socota aynu doorano xisbigeena kaan aynu quweyno. haddii ilaahay yidhaahdo mar iyo laba intaynu u celino waxayna doonto maalin inta lala dhaco xukunkiisa iyo waxqabadkiisa dastuurka Somaliland la bedelo oo la yidhaahdo waa 3 goor iyo 4 goor baa soo sharxo madaxweyne. taas aynu doonto oo inoo noqon maxay Erdogan oo tuso anigu weliba waxaan ka soo jeedaa beesha Ahmed Sheekh Saxaad la yidhaahdo oo jecel ee orodkiya bergato degmada Dacarta la yidhaahdo uu noo saxeexay dowladdiisa iyo xaftuna ka waraabiyay. ayaa waxaan arkay oday awooda oo Sheekh Saxaad sagaal ka tirsana oo dhabar ka baxay u ducaynay. markaa ducadaana waa naga qaban waa ammaan meel walba aan ka ammaano duco aan u ducayno iyo codkayba u siiyo. saddexaasaan isugu darayna idinkana saasaan u kala jeedinaa. markaa dhammaan dadka ku jooga gaar ahaan taageerayaasha xisbiga waxaan ku ogaadinayaa
xusbiga gaarna marka ugu horeysa Soomaaliland kasoo meel aasaasay waxaan gabdhihii kasoo meel farsamaa naxda ma tegin laakiin maanta waxaan ku fogay siyaasiga joogka siyaasadda maxamed xaashi cabdi waxaan dugsigiisa ka soo sharaxaa oo aan ku soo sharaxaa qolaha wakiilada dowladda Soomaaliland ee gobolka Maroodijeex insha Allah bismillaahi ka waxaan qanci waayay ma joogka ahayn ninkaas siyaasaddiisa aad iyo aad loo dhacay xaleeyahan qoliyo xaashi cabdi Soomaaliland dowladda ka إبراو تدل ويا روس إكتا وحصلوا ولا يشوفي هذا الكلام عليكم طب هي على الضوء يقولون هذا وهو فوق الغاية تكون ولاية الدكتور موجودة لنا في البلاد الدكتور موجودة ماذا يقولون xisbiga markaa uu kaga soo baxay hornimadii sidoo kale uu ugu soo gudbiyey xisbinimadii uuna ku noqday xisbiga koowaad ee uu leeyahay mucaaradka Soomaaliland labada kun iyo afar iyo labaatankii إلهنا وحبنا أن حديث التواصل عن الجوب باديو كل واحد لقوا بلن إن شاء الله نبغى حوش نبغى نقطع نسمع عن هذا إلهي أبشري سنة قبل قهينه الله أكبر مسؤولية ونصف أفرادي يهودان ضغطي كي حسن الخلق هذا يتابع إلى يقال كل يوم وحدها حسب الكلية إن بدنا قرار كلية شرعية ولا حاجة ما أنت كل يكاه ولا يزرع يلا يشرب قضية بطولة وده بدنا عليه وبرد وتكاه عليه مغلق يفرق وهو يقال وحنا دورنا كاهين ونقول هذا الوقت يوم ما وقتها إسرائيل لكن وهراني وفي هم كتير بعد هم ما نقول نوع أنا مسأول ورد عليا ورد ما يهدي بالهقلة وحنا هاي كاهو صار بار خمس صار محمد متان قبلاح ورركة تلفزيونka caalamiga ee Honkebel